سوري ودابده maxaa dhacaya haddii internetka laga gooyo adduunka oo dhan haddii internetka laga gooyi lahaa adduunka oo dhan saameyntu waxay noqon doontaa mid aad u ballaaran oo fogaan doonta ku dhawaad dhinaca kasta oo nolosha casriga ah kow waxa adkaan doonta isgaarsiinta dadka waxa ku adkaan doonta inay la xiriiraan qoysaskooda iyo saaxiibadooda gaar ahaan kuwa ku nool meelaha fogfog shaqaalaha iyo ganacsiyada waxa ku adkaan doonta inay sii wadaan wada shaqaynta iyo xiriirka macaamiishooda iyo kuwa kale ee muhiimka u ah ganacsigooda ganacsiga iyo dhaqaalaha ganacsiga internetka ku tiirsan sida e-commerce sida Amazon Alibaba iyo adeegyada internetka sida Netflix Spotify waxay la kulmi doonaan dhaqaale burbur weyn suuqyada saamiyada iyo ganacsiyada caalamiga ah waxay la kulmi karaan dhibaatooyin waaweyn oo ay sababaan hakadka ku yimaada isgaarsiinta iyo macluumaadka sidoo kale waxaa ka mid ah wararka iyo macluumaadka dadku way adag tahay inay helaan wararka iyo macluumaadka cusub saameyn ku yeelanaysa warbaahinta bulshada oo si weyn ugu tiirsan internetka in lagu faafiyo wararka iyo macluumaadka sidoo kale waxa adkaan doonto adeegyada bulshada iyo xukuumadda adeegyada muhiimka ah ee xukuumadaha iyo hay'adaha sida caafimaadka booliiska iyo adeegyada bulshada waxay la kulmi karaan hakad weyn dadka waxay la kulmi karaan dhibaatooyin marka ay isugu dayaan inay helaan adeegyada caafimaadka caymiska iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah dawladda sidoo kale amniga iyo qarsoodiga la'aanta internetka waxay saameyn ku yeelan kartaa amniga maadaama nidaamyada amniga iyo difaaca badankooda ay ku tiirsan yihiin isgaarsiinta internetka xogta muhiimka ah iyo shaqooyinka muhiimka ah ee qarsoodiga ah ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa aan la ilaalin karin si wanaagsan sidoo kale maalgashiga iyo horumarka tiknoolajiyadda cilmi baarisyo iyo horumarka tiknoolajiyadda cusub ayaa aad u gaabin kara ama joogsada barnaamijyada iyo horumarinta maalgashiga ee ku tiirsan internetka ayaa wajahaya dib u dhac weyn guud ahaan haddii internetka laga gooyo adduunka oo dhan waxaa dhici doonta burbur iyo dhibaatooyin waaweyn oo saameynaya dhinacyada kala duwan ee nolosha waxaa muhiim ah in la helo xalal iyo diyaargaroow ballaaran si loo yareeyo saameynta ka dhalan karta dhacdo noocan oo kale ah